yiriso golaha wasiiradu maanta kulan aan caadi ahayn ayay yeesheen kadib shalay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ay dad kul dhinteen dadna ku dhaawacmeen kadib golaha wasiiradu waxay warbixin ka dhageysteen wasiirka amniga ku aadan xaaladda dhacdadii shalay iyo dhanka amniga iyo sidoo kale dhacdadii 14 Oktoobar ee musiibada qaran ahayd warbixinadii laga dhageystay wasiirka iyo dood dheer kadib goluhu waxay isla garteen in loo baahan yahay xisaabtan dhab inuu dhaco in muxuu ahaa ciladaha iyo sababaha muxuu ahaa baabuurtan isqarxinaysa loo ogaan waayey looga badbaadin waayo shacabkii waxa ay tahay adeegoodaas dheer kadib waxay goluhu go-aan ku gaareen in taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka labadoodaba in xilalkii laga qaado dood dheer kadibna goluhu waa u codeeyeen oo si aqlabiyada ayaa xilalkii looga qaaday marka ma waxaa la aaminsan yahay in ay shaqadoodii gudan waayeen oo taasna ay keentay in qaraxyadan ay soo noqnoqdaan oo weliba ay meelo muhiima ka dhacaan runtii arrimo badan oo amniga ah iyo warbixino badan goluhu dhageysteen iyo xaaladda markii la qiimeeyey iyo in loo baahan yahay in la isla xisaabtamo waxaa loo arkay labada taliya inay yihiin dadka mas-uulka ka ah hadday noqoto dhankii nabad sugidda iyo sirdoonka iyo dhankii booliiska marka sidaas ayaa keentay in iyadoo laga dhabaynayo baaqidii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha u ahaa in la isla xisaabtamo marka isla xisaabtan goluhu ay sameeyeen ayay u garteen in tallaabadan ay tahay tallaabada ugu habboon marxalada hadda la joogo marka iyagu mas-uuliyiintan xilka laga qaaday iyagu fursad ma la siiyo ma hadleen oo ma sheegeen waxa ugu wacan in aanay joojin karin qaraxyadan iyo dhibaatooyinkan muqdisho ka dhacay arrimahaas o dhan waa arrimo wasiirka amniga iyo hay-adahaasba hoos kusoo wareegteen waa arrimo muddo muxuu ahaa la qiimeynayo waa la socotaa dhacdadii 14 Oktoobar waxay kusoo wareegtay hadda muddo 2 isbuuc ah in dhacdo noocan oo kale ay dhacdo gaari meel yaalla loo ogaan waayo gaarigaas iyo sababta uu meesha u yaalay muxuu ahaa iyo sababta looga hortegi waayo dhammaan dhinac kalena waxaa la istusay in ciidamada hay-adaha amnigu ay runtii geesiyaal yihiin oo ha noqoto dhacdadii musiibada qaran 14 iyo tii shalayba ay shacab badan aad iyo aad u badbaadiyeen oo la socota hoteelka inay galeen kooxihii argagixisada oo 3 kamid ah hay-adaha amnigu gacanta kusoo dhigeen intaasoo qof oo hoteelka deganaana laga badbaadiyey marka iyagana dhankan kalena waa laga ammaanay ciidamada sida ay u gurmadeen laakiin haddana waxaa la dhaliilay kahor falka in shacabka la badbaadiyay inay ahayd marka maxaa keeni kara baa la isleeyahay engineer yarisow in qarax oo weliba ismiidaamin ah in uu ka dhaco meel aad ugu dhow xaruntii madaxtooyada ee dalka oo dhan laga maamulayo maxaa ugu wacan baa laleeyahay oo loo ogaan waayo runtii dhacdadii shalay dhacday waa la socotaayo waxay ahayd 5 qof oo kooxaha argagixisada 2 kamid ah midna oo gaarigii uu qaraxa waday ku qarxiyey midna uu markii gudaha soo galay markii ogaaday in la caabinayo isagana isqarxiyey marka waa dareemi kartaa dad raba inay dhintaan dad raba inay shacabka un meelaha ay joogaan iyo sameeyo runtii waa mar walba waa adagta laakiin waxa la rabo waxay ahayd dhanka hay-adaha amniga laga sugayo waxay ahayd in sirdoonka iyo xooraanka loo baahnaa in baabuurkaas lagu joojiyo iyo ciidanka booliiska oo meesha aan ka hadleen waa meel ay ciidamadu joogaan oo qofka caadiga inuu caadi u maraba ay aad u adag tahay marka arrimaha oo aadka maaragtay isla xisaabtanka keentay ama accountability-ga arrimahaasaa kamid ah marka tuhunma waxaa jira in waxyaabahan qaraxyada aan la qaban waayin laakiin ay jirto shakiyo kale oo keeni kara in dadkan qaraxyada sameynaya ay galaangal ku leeyihiin gudihii dhinaca amniga wasaaradihii amniga iyo dawladda gudaheeda ma tuhun noocaasaa jira baaris dhaba ayaa la diray baarista ayaa waxaasoo dhan soo caddayn doonta laakiin hadda waxay tahay yaa mas-uul ka ahaa waa arrimahan yaa maaragtay la rabay in shacabkan badbaadiyo yaa ay dawladdu u wakiilatay howlahan inay qabtaan arrimahan saas ayay kusaabsanayen marka hadda xilka qaadistooda maxaa la isleeyahay way ka bedelaysaa qaraxyada iyo dhibaatada xamar ka taagan waxaa imaanaysa in shaksi kastoo mas-uul uu ogaado xilka inuu uhayo ummadda Soomaaliyeed inuu ogaado in madaxda qaranka xilka ay ku dhiibtaan ay tahay ammaano ammaanadaasna muxuu ahaa markii dhaliila timaado in mas-uuliyadda qofkaasi oo magacaabay uu qaato ayay tahay oo waa isasixitaan waa baraarujin waa ishagaajin waa maamul wanaag
waxyaalaha hadda dooda maanta oo lagu soo hadal qaaday waxay ahayd in ciidankeenu ay runtii geesiyaal yihiin laakiin imkaaniyaadkii loo baahnaa aysan haysan in dhaqaalihii ku filnaa uusan jirin haddana qofka mas-uulka ah ee xilkaas loo dhiibo looga baahan yahay bal un sidii waxyaalahaas caqabadaha jira fursad ugu bedeli lahaa islamarkaana uu hawlihii loo igmaday ugu gudin lahaa sida ugu daacadsan ugu dambeyntii injineer Yariso dhibaatada xamar ka dhacaysa way soo noqnoqotay aad baa loogu dhamaaday qaraxyadii meel walba ay gaareen ilaa iyo xaafadihii bay gaarayaan ma jirtaa kasoo marka laga soo tago hay'adaha amniga qorshe uga degsan dawladda federaalka ee Soomaaliya inay masiibadan ku soo afjarto oo ay si dhab ah ugu howlgasho in dhibaatadan xamar ku soo noqnoqonaysa ay yaraato ugu yaraan haddaanay dhamaanaynba aad iyo aad qorshahaas waa jira qorshe waxaa jira guud oo amniga iyo howlgallada ciidamada oo madaxweynuhuna aada la socoto wadamada dariska uu kasoo bariis gareeyey ujeedaduna ay tahay in kooxahan argixisada loo diido fursad isu soo abaabulaan qaraxyada noocan oo kalaha shacabka ay lasoo beegsadaan oo loogu tago goobaha ay joogaan dalkana laga sifeeyo